بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم sanadii ugu dambeeyay ibn aadankeena waxa ku soo batay barada hadda meelaas kugu imaano inaana ka sheekeen magac ilaahay bas waxa noqotay marka meelaas kugu imaano hamigeen wuxuu noqday bas inaan ka sheekeeno fanaankaas heesto qaaday heest hadda socotay heest ugu fiican hees anaga dhan waxay noqotay hees inaas kugu imaano hees aan ku kala tagno hees aan ku jirno hees aan ku kala tagno hees inaas kugu wacno anaga dhan nolosheen waxay noqotay heesta inay ku yeelto saameyn macna anaga dhan waxa noqon dad heesaha daba socdo yaani nolosheena gaaba soo gal gaabkaas oo ah bradarow استحواذ محل لها قعن كودغيد قعن يا نغو دغي اسلامك دينت اسلامك maxay ka qabtaa heesahan socdo afarta madhab oo xambaliga Hanafi Shaafici iyo Maliki waxay isku qabaan afartood waxay isku raaceen heesaha inay yihiin xaraam qat'iyan wali xambaliyada iyo Malik waxay isku raaceen heesaha inay tahay brother xaraam qat'iyan hatta waxay ku tilmaameen heesta macaansigeeda hatta inuu yahay kufri macnaha macaans waxa laga wadaa marka saan aan leedahay لا معنا مركز دريميس متقن مركز ليس كل كان ما تحدد كعيس هذا لون جركا متقانا باشا قادس تاس وحالي جروا شرك معناه وكفر بالله معناها درين كاغا حاد هذا قشعري هذا وحاد قاجي سبرادر وهيس مركز وحواي جركا وحا كدقاجي هيس marka adigu waxa taa qof hees saameyn ku yeelatay qalbigaaga taabatay maxay qalbigaaga wuxuu leeyahay madow qalbigaaga waxa kortay dhibicdaas waxa la bradarow waxa la yiraahdo akinna kortay akinna waxa brad dhibicdaas waxa waaye wajacalna fi qulubim akinna oo ilaahay twaas waxa waaye adiga waxa noqoto ku ilaahay qalbiga ka saar dhibicda madowga ahayd kadibna bradarow waxa noqonaysaa dhigahaaga in laga geliyo cub yani suuf laga geliyo wajacalna ala qulubim akinnatun fi adanihim وقر على جالي برادر وفي آذانهم وقر وحال جالي صوف وقر الله وقرنا وحوا برادر وصوف دقها كعبايو وجعلنا على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقر إلهي وحوجر سبحانه وتعالى من الناس ما يشتري له الحديث اللي ضل عن سبيل الله بغير علم تدو حاجرو هذا الكباشالك إيو ليش عيارته العكل بحاي dad waxa jiro lacag kala baxay gadanaya mise dadka dhaxgelinaya heesaha iyo fisqiga lahwiga iyo baashaalka iyo tumashada si dad kale wanaagi iyo wadada ilaahay looga leexiyo تاس مركو حوا من الناس ما يشتري له الحديث اللي ضل عن سبيل الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من امتي اقوام يستحلون لون الحر والحرير والخمر والمعازف النبي محوري صلى الله عليه وسلم امديد وحي ما دونو دad kamid ummadeyda waxay noqdaan dad xurki xur waxa la yiraahdaa galmadi yani xaraanta ahayd ayay xalaalaysanayaan iyo xariirkii wadqan xariirka labiska xariirka ah iyo khamriga waxa ka dhigayaan xalaal iyo barad waxa kaga sii daran ku leeyahay heesaha iyo kabanka iyo waa taqaan waxay ka dhiganayaan xalaal macnaha wax walba ay sidii rabaan ka dhigteen tumashada iyo qamriga iyo baashaalka macnaha dhaxgalkii wax walba hadda oo diinta xaraam ah waa la xalaalaysanaya oo nabiga taasna been ma had anaga yani waa aragnaa waxa kale oo yiri min calaamatul qiyaamah istihlal al maazif wal khamri wal harir taasna waxay kamid tahay min calaamatul qiyaamah macnaha waxa waaye had waa aragnaa mujtamacina Soomaaliyeed dhalinyaradayna meel markaas kugu imaano meel markaan koreen baawar ha noqoto fadhi ha noqoto dalxiis ha noqdo waa soo yeeranaa waa soo imaanaa waxa la ka sheekeynaa hees leen qaadnaa waa tunnaa brother kaban iyo qaaci waxa loo joogeen brother macnaha waxa waaye istahwada calayhum ash-shaytaanu fa ansahum dhikra Allah waxa waaye kuwaas waxa qabsaday oo control gacan ku dhigay shaydaanki wuxuu ilowsay xuski ilaahay kuwaas maxay noqdeen marka ana waxay noqdeen brother dad shaydaan gacanta ku hayo controlo hadda waxay noqotay markii meel isku imaado marka meel la fariisano marka shireeno marka xaflad la qabanayo marka jirto munaasabad hatta ha noqoto guriga maamulka macnaha guriga hatta wadanka looga taliyo mise guriga wadanka laga maamulo meel ba ha noqoto fanaan loo waaye hatta waxa jira abwaano hatta fanaaniin barlamaanka Soomaaliya kamid ah wasiiro hatta waxa jira hatta hadda fanaaniin iyo ruwaydistayaal isku soo sharaxayo inay noqdaan xilbaanada oo aqalka sare mise barlamaanka Soomaaliyeed macnaha rajay ka wada leeyihiin marka anaga hees iyo fanaaniin brother wadankeena mise mujtamaca Soomaaliyeed saameyn weyn ku leedahay hees la isku waaniya la isku sarbeeyba alu kaftama fanaankii wuxuu noqday brother qiimo yeeshay nabigeena wuxuu sallallahu alayhi wasallam aakhir zamanka waxa la gaaray oo yiri ninka been looga oo faasiq oo faasidka ah oo caasiga oo fasahaad ahlu fusuuq ah ayaa la qiimeynaya dadka ahlu diinta ah oo carabkooda wanaag ka soo baxay afkooda wanaaga ka sheegayeen waxa leeyahay kuwaas waabti waa la cunsuriyeenaya waa liidaya hoos loo dhigaya waa iska fogeynaya macna hadana waa aragnay Soomaalidana xataa ka soo qaad markuu imaanay fanaan brother elbork waxa ay baa intaas qof imaato la soo dhaweeyay si wala loo soo dhaweeyaa taas waxay kamid tahay
حديث النبي إنه شيء جاي علامات قيامة حكم ده إن أو نينكي حما أو فوش حما أو حنكو هاللي بنتنا شيء جاي إن لا قيمة ولا كرامية لكن كي الصادق الأمين نها نينكي في عنان وناك سنانة إن هوس لورد يقول اللي يدو معناها الفنان كأرت أنا وضن كيانا مجتمعي أنا فنان وحكولية سامين وحكولية قيمة وحواي نينك كلية مريا الوسوقات مهما معناها دي هيرو حال جالسي الليت يعني هيرو حال جالسي برادرو إنه نقضو إكسامبل وحل إلا بحديث النبي إنه شيء ودهي إذا اجتمع قوم ولم يذكروا الله في مجلسهم كأنما اجتمعوا على جيفة حمار معناه وحول النبي محمد صلى الله عليه وسلم dad haddii meel iskugu imaadaan meel ku shiraan ay kulmaan kulankooda aysan ku soo qaadin magacii ilaahay macnaha waxay u dhigmaan u qalmaan macnaha wixii la mid tahay inay cuneen dadka marka hadda u jeedaan meeshan wada fadhiyo oo saan u macaansanayo oo qashcariirada iyo dareenka fiican muujinayo ay u dhan baashaalo isdhow wax fiican sameynaysiin aamin cunuyin والله دمير وعنين وحديث نبينا ونوشيك وحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونوشيك وحديث بقولك بقولة دتك هو إمادين مجا إلهي مثلا سوق قادم مشت محاق يالو وحاق يالو قرئي بسباس يسبوس بجي وحفي عن أقيال يهلب لكن لا تسعوا وحاسب عنويين براد ولو بدل إله وبدل محيالي أدون كان حاجة وحل يراهدو رؤيا أو صح هذه أركيس رؤيا أو صح هذه أركين معنا دتك وحا برادرو حديث نبينا ونوشيك مثلا قادم لكن هذا الكي متقانا وحي كلا لا إمادين إلهي مركب محو سميه وحي ماشو ديالو وبدلي دمير وعنسينو يا مركب أي موق دمير عنويين وحسكم عليه وحفي عنه سمينو وحفي عنه عنويين dad baasha laakiin ayuu dameer ka soo xawaad markii meel isku imaadaan mahmaadooda hadalkooda qaacidooda yani ayagu dhan xadiiskooda kulli hadalkooda wuxuu noqday brother oo kaban iyo hees macnaha kuwa waxa waaye istahwad عليهم الشيطان يعني gacanta waxa ku haya brother oo shaan waxa ugu haya sheedaan fa ansahum dhikr Allah xuska ilaahay dhan brother waa ilowsiyay ما لقى ياب كوا عمل ما لقى ياب فنان أبوان إنه إلهي سو حسوستان believe me فناني أبوان برادرو إلهي مسو حسوستان وهذا سو حسوستان برادرو وحير كليه سو حسوستان وحير لا يذكرون الله إلا قليلا محيلا متقان قول ما إلا سو حسوستان إلهي سو حسوستان برادرو مرك إلهي سو حسوسي معناها رمضان كي معناها متقان خوف مركو انت وحس ميان إلهي سكلكم مسو حسوستان انتو كل وحكم مقيهين وقت قلوين يكون مشغول سين برادرو هيستاس سيدي هيد سيدي لو سمي لها معناها أي أولهم براد وحكم ده حجران غم في غم معناها وحكم ده حجران براد مرب فسق فساد حمان ده دوالوين مرك هذا وحال هلا يا ولا عليه الصوماليات قبلها خاصة يوليس الصوماليات نميه المقل إذا كان دتك عادي على هلا دتك دميران عن أهين وحال يري وإن أنكر الأصوات الصوت الحمير مقتة هرتا عد كان أوحن وفسق فساد كان أوحن أول مقلو وأخص العد بس وحلا مقلع وقيليو وعدك دميرك وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير موقتها ولالو فنانك إنه يهدمير هرت إرجع فنان حاجة لقى كينا فنان وحالة كينا إرجع فنان وحالة كينا إنه حاجر عرب قبيا عمله في وفكرة دمير فرو أرك دمير فرو أركي أو صعده وح وكم التالو واي أبوانه أها وحكم فكرة وح إنه قرأ بيت شعر إنه قرأ دمير أرك ميل فريو أو ولقيس دميرنا عمل عن حين مركز وح وكم التالو واي وحبحي هذا فنان والله يعني كم وحده برادر وفن وحده كمل كينكر سو مرك ارجي سو سعودي فنان وحي نقطي خفكي لا ما wax cusub macna khofkii dadka ma taqaana ka dhaqaajiyo saameyn ku yeesha dadka yani jirkooda ka dhaqaajiyo wuxuu noqonayaa waxa loo bixiyay wuxuu qaatay magacaas lahaay fanaan macnaha dameer waay aslan ba dameer tahay soo marka walaalo adan kuleeyahay walaalkay muslimka oo soomay salaaday oo ilaahay ka cabsanayo bisha ramadaan dhan brother muraad Allah dana Allah ilaaha bariisay waa duceysanaysa waa soomay salaadiisay waxa u socotaa daar al-aakhira waqtiga soo dhawaaday maalmahan waa arag waxaan ku jirnaa calaamada qiimaha brother zaid ay noqotay marka walaalo qof soomay salaaday oo ajir raasanayo oo guri fiican aqra ka dhisanayo oo ilaahay wax fiican oo la hortago brother at-tahiyaadka ku dhuusan ha noqon sidii ku at-tahiyaad ku dhuusay at-tahiyaad soo dhuusan ma taqaana dii adoo soomay salaaday wax fiican sameeyna brother haween dab lacagtaada habeen dambe dada imaaday u soo haajiray u soo dhoofay brother wanaagu ma soo dhoofin wallahi wuxuu soo dhoofeen u soo haajireen brother fisq iyo fasaad iyo xumaan wuxuu soo dhoofeen brother shaydaan risaaladiisa dadkan ay gaarsiiyaan macnaha dad meesha waxa soo baxay oo joogo shaydaanku u shaqeeyo macnaha shaqada shaydaanku qabal ayaga u qabanooyo ramadaankii oo lagu jiro dadka balansadeen dadkii waxa isku keenay ramadaankii lagu jiro dadka balansanooya hatta maalmaha dadka ay balansanayaan inay xishoonaynin inaysan xishoonin aysan lahayn sariig waxa ku cadeynayo man jeclay in soonka ay dadkii oo maxaa la yiraahdaa ajr iyo xasanaad iyo maxaa la yiraahdaa karaamo jir inaan soo dhaxgelino qoonfan iyo waxaas
maalmihii wanaagsanaa ramadaanka lagu dhex jiro dadkii cibaadaysanayaan inay imaadeen ee dadka tusinayaan wixii sameyn rabaan dadkii u soo bandhigayaan wixii sameyn rabaan macnaha walaalo lacagtaada loo soo baxay lacagtaada loo soo dhoofay lacagtaada labada shilin oo lagu soo daalay dadkan waxay rabaan inay kaaga qaataan si sahlan lacagtii oo ilaahay oo ku siiyay oo kugu arsaaqay oo loo baahnaa oo loogu talgalay inaad ku bixiso waddo fiican macnaha zako iyo sadaqo maadaama ramadaanna ay tahay haddana dadka masaakiinta inaa caawisid walaalo waxaa loo soo dhoofay loo soo baxay diyaar loo soo raacay loo soo qalab qaatay laiskugu yeertay in lagaa qaato lagu qabto showna maxaa brother waa masquushii shaydaanka yani waxaa lagu geeri waa masquushii shaydaanka adoo nin ahaa cibaadaysanayo soomayo salaada ilaahay baryay waqtigaaga waxaa lagu soo dhammayn rabaa lagu soo afjar rabaa brother in lagu geeyo masquul macnaha waxaa noqon doontaa qof oo ataxiyaadka dhuusay ataxiyaadka dhuusa lagaa keeni rabaa marka walaalo way cibaadaysanaysa yaa lagaa tanbadin dadkan waa shayaadiin وحلفاء الشيطان واصحاب الشيطان waxay u soo bixeen brother fisq iyo fasaad iyo xumaan waxa la yaabana dawladda Soomaaliya dawladay dadkan soo baxay oo raba show inay qabtaan waa taqaana cudurkeen wuu jiraa Hargeysa ilaa Xamar meel loo noqotay dadkaas ku abiyeeroyo dawladeeda xaflad noo jirtaa cudur noo jiraaye idinta waxa sameynaysiin dawladii aaw meeshan waxa waay wax kala ma aha walaal meeshan dad ilaahay aan aqoon xuska ilaahay ka tagay dadkan waxa isku imaaday ma ogi meeshan waxa isku imaaday brother abwaan iyo DJ ma kala haraan waa may fanaan waa kii heesta qaadayay abwaan kan heesta u soo qoray DJ waxa brother kan heesta u kala kicina u saaray marka ku faasiyo wixii yihiin ana hadana islaam ilaahan qabna Soomaaliya la ilaaha illallah ilaahay muxuu sameeyaa subhanahu wa ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala bini'aadamka markay xumaadaan bini'aadamka basharkeen marka xumaano wuxuu soo diraa nabiyo wuxuu soo dhiibaa risaalad waxay Allah nabiga noo keen aniga noo sheegay dadkii wana qaadanaa masqaan way diidaan fama shaafa liyumin wama shaafa lakfur wasaas dadkan marka hadda ma taqaana faasuqiinta oo faajiriinta fanaaniinta lahay wax u soo waxyoodo warka u keeno ibliis alayhi la'natullah la ibliis warka u keeno wuxuu soo dhiibaa brother u soo waxyooda ninka la hayay abwaan waa ninka soo qoro Soomaa abwaanku soo qaada wuxuu keenaa oo u keena brother rasuulka yaa ma taqaana rasuulka shayaadiinta waxa waay brother fanaan waay imaamkooda waa fanaan rasuulkooda waa fanaan muadinkooda waa DJ saasa la marway brother marka diinta waxa islaamka hada ka fiirso meel kale saasa kugu iimaanaysa diinta islaamka hadii ma taqaana raacdo aad daba gasho xaqiiqda taas ku tusinaysa وتضحكون ولا تبكون وانتم صامدون wuxuu yiri والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما قال وحول الله سبحانه وتعالى مرقات زور مرقات زور نقول انه هدي اي باشال بلايين ما aragtay soo agmaraan ilaahay saaxiibayaal oo naga raala hada dilana acmaal lakum acmaalukum ma fahanti dad waxa jiro ilaahay ku xiran oo ilaahay ciidankiisa ah oo ilaahay aaminsan oo ilaashana acmaashooda iyo wanaagooda iyo wixii ma taqaana soo sameysteen dadna waxay u soo xidxiiteen oo soo qalab qaateen brother in aad ku halay naarta jahannam inay ku galiyaan maxaa la soo ogaa naar jahannam inuu galoy asigo ogyahay inuu yahay nin faasuqa faasqajana oo ogyahay marka adoo rawaa marka inuu ku fasahaadiyo oo ku geli naar jahannam daas oo galoy ogyahay mugta waa lagu tashtay waa lagu soo tashtay waa lagu tashanuya adaa lagu socdaa marka waxa kula yahay ka fiijignaaw ka soco iska ilaali yaa laga aqal badan yaa laga tan badan yaa laga adkaan mar walbo ilaahay is hordhig marka dadkan fanaaniintan iyo dadkan isbahaysanaya is aruursanayo wallahi billahi tallahi wa tabliiq fanaan yu tabliiq fanaan tabliiqa taashadaan ba tabliiq u taawal soo diray marka shaqo fiican qabanaysa ilaahay wuxuu yiri والشياطين يوحون بعضهم الى بعض معنا شادين حتى اسكو وحيوتا برادر شادين اسكو وحيوتا ايا اسكو دراج واساس والله فنان واقيس محو قيس كويا ما طبعا فنان نيو نعب سنه ما فنان وحا برادرين انا عبسنين برادر قيسيا يعني هو انين ان بقي انه اسو ميغا هايست انو دنتو ميغا ارغن ايغو هيساي دنتين ادو هيساي مل فعن ku marayso tumanayo ادو ku jir brother ادو ku imaad malkul mood maxaa leedahay wallahi ana waxba dhehin waxa dhees waxa ma taqaan heesta qaadus la leedahay bis la soo walaal wax walba khatmadaad aad inaa sameeyay kartid hadii heesa kugu badan tahay waa ku ogahay maad waxa ku jirtaa TikTok iyo Snapchat sana ku jirtaa laakiin la soco heestaas oo awadid oo maad nidaad ku hayso qaadowsid oo ma taqaan nidaad maar heesta waxa loo qaada laba nooc mid afka ka qaadaysid mid niyada tan ugu xun waa tan niyada waxa brother my sister marka ugu dambayso aad marabtid waa mid noqonayso khaatmadaad macnaha waa mid ugu dambayso hadalka ugu dambayso ka soo baxay wuxuu noqonayaa heestaas ku jirta niyadaada right now hadday ku jirto niyadaada hees waa jirtaa marka qaar baawar wado adoo meel fadhiyo adoo socdo adoo sheekeen hees kugu soo dhacayso marka waxa loo baahan yahay markaad maqashaba inaad ka cud baleestid maxaa yeelay taas waxay noqonaysaa tii ugu dambaysay marka dhimanaysid oo lagu imaado malkulmad ku soo rustaago nafta laga qaad dadka ku dhahayaan ashhaado
adi mataqaana maxaa dhihi doontaa heestaas nidaad ku jirto hadda mise nidaad u badan aa la soo boodi doontaa waxaa dhihi doontaa taas waa marka khaatmadaada adaa samaysan karo adaana samaysanayo adayna ku taalaa dadkiina hadda dhahay ramadaana lagu jiraa ilaah ka cabsanaynaa waa ka baxnay waa xiray meeshayda my sister kan waa xirtay laakiin what about markaad dhimatid ya maxaas leedahay waa lagaa qaliya macni gabadhaan way dhimatay dhac meeshaas yani wuxuu ku jira tiktok iyo youtube-ka niikinaysay ma lagugu cadaabaya laa wallahi waa lagugu cadaabaa wallahi waa tii naarta ku gal lahayd wallahi waa tii naarta ku gal lahayd naar jahannam ma lagu diyaariyay adi idil aglaal fi anaaqihim salatu yushabun khuduhu faghulluhu aku suugis wallahi khuduhu faghulluhu matqana maxalla iglaal waxa la brother katiinad saac amal ee waaye saan qortu isku suray waa lagu siraa wasalaatu yushabun katiinada marka lagu jiida soo jiida asxaab malaha wallahi marka waa lagu jiida waa ku suugis ada sameysanoy inna allaha la yudlim anaga as dulmino anaga naarta anaga sameysano anaga naarta mataqaana kasbano ilaahay subhanahu wa ta'ala man raba naar ilaahay subhanahu wa ta'ala naarta bil adkiis ma la rabo adoontiis ma geeyo anaga is geynayno hadda fiiri hadaan ku ilaahay ka cabso waxa leedahay maxaa ka galay aan waxaan ku leeyahay waxa bigama galan waxa samay naar jahannam mataqaana dhaxgal maxaa yeelay janna ku leedahay booska jannada ku leedahay arab inaan ka qaato guri anaan ku leeyahay naarta inaan ku siiyo daasid waxa laha trade ganacsi was dhaafsanoyna tabaadul taas jirto marka malas waanaay meesha waan dhamaatay waxa waanaay walaalahay muslimiinta oo xaqa aan waanaaya dadkan xaq raba in loo sheego yaa lagu haleeyay dadkan aslan wuxuu soo bixinay ku halayaan dadkan mashruuc la soo dirwaa marka adaa lagu soo baxay lacagtaada waqtigaaga aa loo soo baxay iyo acmaashaada marka waxaan ku leeyahay waa isweydiin doonaa lacagta inta ku bixisay $25 waxa ku bixisay xaflad dadna waxa jiraan gaajo hayso oo abaar iyo roob iyo balaayo adin waxa kala baxday xaflad dadaa soo dhoofay wuxuu macasana ka qaataan dadkaas waxa waa tabliiq ma ilaahay ku soo xasuusinooyin may way ka waalooyin macnaha jirkaaga asaan dheesid wallahi billah saan marka dhahdi saan ma dhah meesha tan dhaqaajisay xubinta ma taqaanaa xubinta meesha ma taqaan dhaqaajisay xididka meesha dhaqaajiyay xubinta meesha ma taqaan ka dhaqaajisay musbaara lagu qabaha maanta qiyaamaha musbaar jirkaaga mar walba ciyaaraysid music maarta ka ciyaarsiiso meel kasta nuxsatay maaragtay waxa lagu qabaha musbaar soo marka adiga adaa badsooyo masaabirta meesha maarta laga kabihay adaa badsooyo wuxuu badan tahay mataakada gadaal loo ogaa hey gabdho marka idinka lees waalooy naar jahan mid kale raasooyo gara